السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان سومالوين انت كحيران جنال كان هرمو تيوب فيديو كان waxaa ugu talagalnay abtigeena Cadnaan oo hadiid ugu dhignay tripkan aan joogno Ankara oo aan ka bixirno sidoo kale waxaan kulan aan leenahay maanta safaaradeena Soomaaliyeed haysik waxaan leenahay Cadnaan markuu arko videogan aan u soo duubnay iyo safaaradda Soomaaliyeed wadanka ku taalo ee astaanteena qaranka kulena markuu arko hab in ay ugu farxdaan Cadnaan saaxiibkii aad ugu salaamaya waxa uu ka dambeysay bil ka hor أيها ده أبتوتا أنا زعيب كده إن شاء الله بإذن الله كريم فيديو بروح بدن وكال عرقة نقص سوق سبرايز وعساو سبرايز أما هرموت تيوب ترى هرموت تيوب اللي يوضح حصو على سفارته إنه نصعد إن شاء الله أيام تام شغفي أنا وضع أبتو حملنا دلال إن شاء الله إن شاء الله دلال كا عرق سرعة Let's go. ساكني روكني waxaan u dhaqaale haynaa waaga Cadnaan daraadi soo baxnay gabo uu rooba ku soo baxnay ismadeen rooba Ankara lagu ma tushan karo wallahi lagu ma tushan karo waa ira qadeynayna insha Allah kadib waxaan oo imaan doona diblomaasiga ma maadi ay jaacis intaqa weather and women and walk من بقى كتشن أنا بدل كرا هذا اللي واقع صح أبو أبي أكثر وين هذا وين ماشي هذا جنينا يبصينا أبو الربع على يدي البرادر سدنا كلها سدنا برا مايا مركا جليس إن ريت كبر يا أبو هذا قصص أنا شو أنا أقول هذا سكين ما يغني حتى موته هي وحاول طويل لو سنة تراك وده ما تسألني في الكاميرا سفارة الصومالية على كي نورو أوف دبلوماسي جيني السلام عليكم سفارة الصومالية أنقرة كسر سفارة الصومالية سفارة صوماليا ولا صومال برا؟ محاتر عبد الرشيد ما يدعم ها عبد الرشيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ولي بان أنا عيا sidoo kale waxa la joogo la socdo walaalkay Saki waa asagana qurbaha ka yimid in badan halkan ku soo laalaabanay laakiin markii ugu horeysay uu imaado Ankara muusan xitaa u diyaar garoobin surprise markaan soo waday sidoo kale maanta waxa surprise ugu dhigay in aan keeno meel aan ku leenahay wadan weyn oo ah safaaradda Soomaaliya waxaana safaaradda ka shaqeeya walaalkay diblomaasi Ibrahim Caddo soo dhow Iwan baasan tahay safaaradda Soomaaliya ku soo dhawaada mar kale meeshaan ummadda Soomaaliya loogu shaqeeyaa waxay ka mid tahay xarumaha loogu shaqeeyo bulshada Soomaaliyeed wadanka Turkiga degan waana safaaraddii ugu horeysay oo Soomaali leedahay oo shacabka Soomaaliyeed wadanka ku dhaqan ugu adeegta ayagoo guryahooda jooga masha Allah marka waxyaabaha loogu howlwadeennada wadanka safaaradda ka shaqeysa loogu mahadcelin karo waxaa kamid ah in safaaraddan ay soo kordhisay adeeg la dhahayo adeega nagee oo u sahlaya shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan wadankan Turkiga in ayagoo guryahooda jooga ay online-ka kasoo dalbadaan adeega ay u baahan yihiin warqadaha ay u baahan yihiin kadibna safaaradda iyo howlwadeennada u fududeeyaan adeegaas guryahoodana loogu geeyo masha Allah waxaan leenahay horumar wanaagsan inaad ka shaqeyseen oo idin ku wajahna Saki waa soo dhow maadaama aan surprise kaaga dhigana safaaradda ku dhex keeno
والله ما أنت ومركي كوري سامع أنا سفارة سوماليا روتي لما سكوت سفارة يقول يسميه تن نيروبي أنتبه لكن wax yaran joogay ayadoo maaragtay markaas xiran tahay aan tagay laakiin safaarad furan oo shaqeynayso oo diblomaasiga hor fadhino oo magaaladii kugu magaaladii masha Allah inaan saaxiibona diblomaasiyana oo soo iyo safaaradaha hadda aniga laftii safaarad kaliya kale aan ka shaqeyn karta Nairobi waa sida safaaradan ay u shaqeynayso adeeggeeda iyo dadka guryaha uu qabanayso arinta Nairobi nisaastay mafahad waxaas keenayo dadka waxay kala leeyihiin ka shaqeeya safaaradaha waxaan dhihi karo wuu kala fircoon yihiin shaqadii waana u kala diyaarsan yihiin aad iyo aad kugu mahadcelinayna adeeg bulshada Soomaaliyeed oo haysa walaalkay adeeg iyo safiirka iyo bulshada masha Allah والله سفارة جوجنا ولي بعيد وسكر سوني لو أنا كفر حسنا إن إمانو سفارة الصومالية أكون هذا أنكرة قديما يا باي يا باي يا وهذي والله أبونا كبرتني كوبي عيدا كوبي إلا حلينا كوبي إلا حلينا إلا أنتو حلينا أنا بوسيو يا باي يا باي أبغي له يا باي safarkii dheeraa Ankara ilaa iyo macnaha aan ka tagno safaaradii Soomaaliya waayo safaaraddu wadadkeeni anaga iska leh waana soo fiirnayna waanu ku qasbanaa inaan tagno soo fiirnay ilaa safiirka la soo kulano ma sha Allah waqti aad u qurux badan la soo qaadanay sidoo kale xal ayaa halkaas ka soo guureen waxa la macnaha laga soo baxay halkaas xal ka soo tagnay dhacdooyin fara badan wadada ku soo aragnay ayadoo baraf dhacaayo wadna xanuun aan ugu dhici rabay dhaxtin darteed ma sha Allah waxaan imaanay Istanbul sidoo kale Istanbul waxa ku arkay walaashii Xamdixiis oo aan hore u ogaa inay wadankaanba caagaha soo dhigto ahna shakhsi aad iyo aad macnaha noogala tirsanaa waagii Mulali Boys aad u ahayd qof aad u fani ah hees xaraga si fiican u taqaanin YouTube gooni ahna way lahayd Nairobi ilaa Muqdisho ayadana caagaha soo marisay ugu dambeynna waxa ay ka soo dhacday Istanbul aniga ayadana waa kan sanad hore iyo sanad ka hore 2 sano ka hor 3 sano ka hor waxa isla joognaa Kenya haddana waxaan isla joognaa Istanbul walaashay soo dhawo hormuud team ibtacnaan janalkiis maxaa leedahay janal hore ugu soo muuqan jirta Xamdi aad iyo aad u maasantahay baro waxa aad ugu faraxsanahay liicada walaalkay ma sha Allah sikadiisaan isku aragnay asxaabta soo dhawaada YouTuber hormuud YouTuber kun ko jeer muddo waa ka maqnaa laakiin hadda waa kana say arkaysi waa ka soo muuqdaa intaasi in ka badan video kale oo soo wadnaa insha Allah taala duu yahay ninka liibaan waa kana waa isqaban ninka liibaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay magaalka cabaadna isla sii wada joognaa insha Allah malaga yaabaa janalka dib inaa u soo celisid insha Allah taala meek aba dhar u bedelay way follow-ya u bedelay insha Allah taala insha Allah waxa ku leenahay mar wax walaashi aan inta kula joogo waxa waa garab ay heli doontaa travelkayga wixii dib aan u sii dhigan doonaa doo app insha Allah Xamdin waa ugu arki doontiin janalkayga weyn oo ku arki doontiin waxaan idin kaga tageynaa tan iyo kulantan dambe hormuud sidaas iyo nabad geliyo amaana Allah